bini aadamka aqoontiisu waxay korodhaa inta badan inta ishiisu korodho noolaha ama adduunku waa wax weynaan dhaafo fogaan dhaafay oo libdhay oo la arki waayey iyo wax yaraan dhaafay oo yaraaday oo la arki waayey bini aadamku mar kasta uu qalab samaysto aragtidiisa soo dhoweeya horumarkiisaa dhowaada cirka iyo samooyinka iyo waxaas aynu aragno waxaa dhulka la dhigay teleskobyo waaweyn iyo wax lagu eego bale markii saafinimadii hawadan iyo pollutionku tiro batay waxaa la yidhi ilaheenna dhulka yaalla aan kor u qaadno cirka geyno dabeetana waa tan la diro maxay satelliteska iyo waxa kan cirka loo diro habal cirkuu joogaa waayo isheennaynu dheeraynaynaa meel fog inaynu aragnaa baynu rabnaa si aynu wax u baranno xagga kalena waxaan wax lagu eegaa la tiro badiyey oo axmed zuwayl muxuu wax ku qaatay femto waa hal 15 zero lagu daray 1 divided by 10 to 15 zero wata that time of a second waxa dhici kara in la sawiri karo yani markii cilmigu ballaadhay awalan de wixii yaraaye wax lagu eegaya microscope-kii hore ee in jeermis iyo wax jiraan wadaadada kiristaanku berigii hore waxay odhan jireen xanuun oo dhammi waa dardaraad sida qaariminka jooga ay nagu wadaan dadkaba inuu jin iyo ili iyo waxaas wada hayaan markii la helay waxa yara wax lagu eegaa la yidhi war jimanna maahe waa bakteeriya meesha rooraysa ee la arkay bini aadamku mar kasta uu wax araggiisu sii dheeraado aqoontiisaa sii badata marka nolosha waxay u qaybsantay bay wax weynaantiisu weynaan dhaafo fogaan dhaafo la arki waayo wax yaraan dhaafo la arki waayo waxa saddexaad bay dhaadaan waa waxa mucaqadka tacqiidka complicatedka sida maskaxda bini aadamka oo kale oo aqoonta loo yeeleeyay weli ay yartay oo koobantay mahma technology-gan iyo aqoonteenu badatay waxa loo leeyahay aad bay u yartay dawaagii hore maskaxda bini aadamka inta badan waxa la daraasayn jiray marka accidentsku ku dhacaan kan dhankan baa shil kaga dhacay araggii baa ka lumay markaasaa la gartaa la yidhaha xaggan baa ay ku jirtaa waxa wax lagu arkaa kan xaggaa nabar kaga dhacay markaasuu dhaga xaggan bay kaga jirtaa wixii wax lagu maqlay ilaa iyo markii dambe qalabadan yaryar ee wax sawira ee sawiri kara maskaxda iyo siday u shaqayso intaasaa aqoonta xoog u badata idan waa mucaqad laakiin waxaa layna faray eega cirka iyo dhulkaba baa ilaahay leeyahay maa taraa fii khalqi araxmaani min tafaawut ka weyn iyo ka yar iyo waxaad aragtaba maa taraa fii khalqi araxmaani min tafaawut farjic ilbasar karratayn ku celceli baa ilaahay leeyahay daymada dabeetana waxaa leeyahay hal taraa min futuur saa awgeed waxa layna faray inaynu nolosha xoog ugu fiirsanno waayo ilaahay wuxuu leeyahay innaa kulla shayin khalaqnaahu biqadar wax walba waanu jaangoyne yani suurtagal coincidence kama aha inay dunidanu ku timaado even intay soo jirto o dhan haddii sidaa loo lulayay kama suurtagal aha even one protein inuu samaysmaa kama suurtagal aha qolada mathematicsku calculationka markay sameeyaan waxay tilmaameen dunida inta ugu yar yani secondka inta action dhici karta waa 10 to power of 45 blankis dimensionska markaynu isticmaalno dunidu waxay soo jirto oo dhamina waa 10 to power of 25 seconds 14 bilyan saleelay way jirtay dunida materialka ama particleska yaa loo dhanina waxay ku tilmaamaan 10 to power of 80 markaad isku dhufato waa 10 to power of 150 taa macnaheedu waxa weeyaan wixii ka badan 10 to power of 150 marka la calculate kareeyo probability-ga intaa ka badan kamaba suurtagal ha kownkan ama waa in waqti inta ka badan layna siiyaa ama material intan ka badan waa in layna siiyaa waa ilaa suurtagal maaha inuu samaysmo proteinka ugu yari probability-ga ku samaysmi karaana bay leeyahay waa 10 to power of 160 that means even one protein ma suurtagal aha timekii dunidu soo jirtay
in mathematics markaynu xisaabino inuu suurtagalayo inuu samaysmaa laakiin dee marka ilaahay la diido dafiraadii ay dhacday inuu baa laysla soo taagayo sayniskii la sheegayo la dafiraba kii la calculate garaynaya ama la sheegayo dhan oo la dafiro la iska indhamaraabaa yimaada idan waxayna saareen waxa weeyaan inaynu kownkan daraasayno hadduu yahay wixiisa yaryar iyo particleska hadduu yahay insaankan iyo sidan ilaahay u abuuray iyo DNA-geennan cajabta qaba waxay yidhahdaan DNA-gu wuxuu la mid yahay a book of 46 chapters bay yidhahdaan every chapter uu yahay 48 to 250 million letters book saasi oo intaasoo letter every chapter uu ku qoran yahay suurtagal maaha inaad tidhaahdo uu iska samaysmay laakiin ilaahay wuxuuna faraya inaynu kownkan u fiirsano وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون kaasi waa qodobka koowaad oo ah sunnada jaariga ah qaybi waa taa nayjarka ku saabsanee cilmigu uu ka warramo sayniska ee layna yidhi barta oo baadi doona duniduna waxay u kala horaysaa sida u kala aqoon badantay waxay u kala dhaqaalo badantay sida u kala aqoon badantay waxay u kala inventions iyo patents badan tahay sida u kala aqoon badantay waxay u kala jaamacada wanaagsan tahay sida u kala aqoon badantay saa daraaddeed haddaynu rabno nolosha tan inaynu wax ka samayno waa inaynu baadi doonnaa ka labaadna waa sunanka bini aadamka ku saabsan iyo noloshiisa waa sunanka diintu ka warrantay inteeda ugu badan ee amrullaahi wanahyi wa wacduhu wa waciiduhu ku saabsiisan yahay alxayaati albashariya kaasina wuxuu u baahan yahay inaynu daraaso ku samayno oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo tilmaamaya ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ilaahay cidda adeecda iyo cidda caasida isku wax kuma abaalmariyo cidda iimaanka laga helaya cidda kaafirka isku si uma abaalmariyo wax waliba sunnay ku socdaan ciddii raacdaa abaalmarkeeday helaysa ciddii ilaahay diintiisa raacdaa abaalmar bay leedahay ciddii ka jeesatana abaalmar may leedahay waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka waa abaalmar noloshu sunnatu tadaafuc ayay ku salaysantahay bayna alxaqi waalbaatil innagaa layna faray inaynu xaqa difaacno haddaynu difaaci weyno baatilku wuu faafaya noloshu waxay ku salaysantahay sunnatullaahi fi lfitna waalibtilaa inaynu fahmno sunnada imtixaanka iyo ibtilaaga waxay ku saabsantahay inaynu fahmno sunnatullaahi fi dulmi waalظaalimiin sunnada alle iyo waxay ku aroortay kuwa wax dulmiya iyo dulmigaba waxay ku soo aroortay oo qur-aanku in badan ka warramaya sunnatullaahi fi likhtilaafi waalmukhtalifiin sunnada alle ka warramaysa dadka isqabta iyo waxay ku dambeeyaan ha isqabanina baa la yidhi maalan haddaa isqabataan waxaa tegaya dowladnimadiinna iyo xooggiinna ayaa tegaya waa waxaynu tajribaynay isqabasho dhammaanteed waa soo tajribaynay natiijadeedana waayo arag baynu wadannay cid inooga warrami mayso waxaa qur-aanku ka warramaya sunnatullaahi fi tarafi waalmutrafiin inta kibirtee qooqday ee dheregta iyo waxa ka dhasha waxaa qur-aanku ka warramaya sunnatullaahi fi listidraaj yani waxaasoo dhammi waa sunan mid walba haddaynu isdhaana ka warrama muxaadara keligeed ay noqonayso laakiin waxaan u tilmaamayaa waajibkayna saaran baa wuxuu yahay inaynu qaanuunka ilaahay dunida u dejiyey baranno si aynu ugu dhaqanno qaybna qur-aankaa ilaahay ku soo dejiyey qaybna waxa layna amray inay jirto ee innagu aynu baxsino
qayb ilaahay baa inooga warramay oo qur-aanka iyo sunnada ka warramaysa qaybna waxa layna yidhi caqligaan idin siiye qawaaciddan noloshana waan dhigay tajribe iyo baadi doona baadho idinku baxhiya marka waxaynu u baahannahay afalam yasiiruu fi lardi ya walam yasiiruu fi lardi yaqul siiruu fi lardi markaad aragto inay tahay innaga cidda laleeyahay war waxarka cidda laleeyahay war waxarka oo ogaada waxa dunida ka jira waa innaga waxaynu u baahannahay daraasaadkeenna ijtimaaciga ah iyo kuweenna insaanigaaba human scienceskeenno dhan dib ugu noqonno innagoo ku salaynayna ilaahay kitaabkiisa mashaakilkeena haystaa wuxuu yahay intaynu aqoonta kala saarray ayaynu tajaaribta bini aadamkaana gaar u barannaa kuwa tajaaribta bini aadamka bartaa kitaabka waxba kama oga kuwa kitaabka bartaana tajaaribta bini aadamka waxba kama oga inta badan saasaynu u naallaa intaynu kala soocnay noloshii ayaynu dadna waxaynu ka dhignay inay kitaabka ogaadaan laakiin nolosha kale aanay waxba ka ogaanayn oo badan qaybna waxaynu ka dhignay inay tajaaribtii bini aadamka oo dhan isku dayaan inay ururiyaan laakiin ilaahay warkiisa inay ka dhegala'yiin iyana aanay waxba ka ogeyn waxaynu u baahanoo darsigani ku saabsan yahay war labaduba waxay ka warramayaan sunnadii alle waxay culammadu yidhaahdaan midna waa sunnada alle manduurkee la arkayo alkown midna waa sunnada maqruu'a ah ee qur-aan iyo waxyi soo degaya marka midna waa la akhriya waa kelimadii ilaahay midna waa mafcuulaadkii ilaahay midna waa khalqigii ilaahay wuxuu alle sameeyey midna waa hadalkiisii labaduba waxbay sheegayaan ilaahay khalqigiisu waxbuu ina barayaa laakiin waa haddaynu derisno oo si fiican u derisno ilaahay kitaabkiisuna waxbuu ina barayaa laakiin waa goorma waa haddaynu ku tadabburno dhuganno oo dheg u yeelanno si fiican u eegno labadaba waxaynu u baahanay intaynu baranno inaynu barnaamijteenna isbeddelka iyo islaaxa iyo wanaag raadinta iyaga ku salayno marka darsigan isagoo kooban waxa uu sheegayaa dadka muslimiinta ah xilka saarani inuu yahay aqoon inay baadi doonaan midna waxyigay ku jirtaa midna kownka ilaahay bay mabsuus ku daadsan tahay labadubana caqligii fahmi lahaa bay u baahan yihiin waxyigu isu kaa sheegi maayo inaad adigu daraasayso u baahan yahay kownkuna isu kaa sheegi maayo inaad adigu daraasaysaa buu u baahan yahay labadaba midhahan ka dhasha wuxuu noqonayaa midhaha nololeed oo ah dariiqa xaqa ah ee ilaahay lagu gaadho ee adduunka horumar lagu gaadho ee aakhiro janno lagu gaadho labadan barashadoodu ku salaysan yihin idinkuna waxaad tihiin dadkii u xaydxaytay inaad wax barataan laakiin kelmaddan waxaan idiin leeya walba waa laydin baraye dhan qura ha ka rarmina dhan qura ha ka rarmino intaad saynis barato wixii ilaahay kuu sheegay ha ilaabin ka kalena waxaan leeyahay war bal adiguna kownka ilaahay abuuray maanta dunidani waa casrulcilmiya waxaad ka ogaan karta ka ogow takhasuska dambe yeelo qofku inuu marka dambe specialization qaataa ma xuma laakiin specializationku goormuu bilaabmaa maalan sida caadiga imika elementary school gaalku systemkii inoo keenay ilaa iyo secondary buu dhigtaa intaa waxaa la baraa qoraalka iyo waxaa marka laga yimaado in lagu sheego cilmigu inuu badan yahay cilmigu inuu badan yahay aanad ka kala dafirin dabeetana jaamacadda markaad tagtana gobol yaroo ka mida lagu yidhaha haddaba laynka ha raac ogaatay dunidu in cilmi badan yaale gobolka ha raac markaa qolada kalena waad ictiraafaysaa waxaa kaa la mid ah baysigiska diimeed waa inaynu barannaa inta fardulacaynka inugu ah qof walba inbaa fardulacayn ku ah intaa waa inaynu barannaa mar labaad waa inaad barataa takhasuskaaga inta khusaysa ee diinta ka mid a daada dhaqaalata inbaa ku khusaysa dad caafimaadta inbaa ku khusaysa qof walba in khusaysaa jirto oo ilaahay kitaabkiisa ku taalla uu u baahan yahay inuu ogaado marka waxaynu leenahay nolosha yeenan dhan qura ka rarin labaduba waa sunno ilaahay keenay oo la rabo inaynu barannee
وإننا برنا مركز بين الليباننا آخرية الدوبة وحنشعل ما أنت ندرس كيكو كوبا وإنت أسكو كوبا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين